koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warnamiyowgeeka waramaba ana koonfur galbeeda an soode madawiine nimir fadoha ino an ismusharaha waan ikaalmaytan afadayse aragaasan war nabadii nool hadday ku wadata madaxweyne waad noqonaysaa ma lagu wadaa war haadahaya madaxweyne masaasuu u raqiisay waa nala weynaaye war madawiinenimo sharaftiisiisan dhulka la galeen eberka dhigdeen iyadoo madaxweynaha galmudug haaf dhuus maraab rooga yaadaada maybaa ka doorateen baasta nyaanyow waraasin dhulka la galeen aniina ino ana koonfur galbeed madawiine nagada xaq baan lahaa waryaa war waayahay salaado haddaad madaxweynaha nuucaasa rabtid cadaadaa lagu doortaa cadaada tag baydhabaha aadine warnimayo xalayto markaan sariirteeda tegey baan walaacay walla allaga gabasaan la jiifatay dhangalow yoona imbidhinow bayaalana ragga dumar ma hinna dhageyso waxaan xalay ka walaacay haddana aan iska qanciyay baa saaka ku qanci waayay waxaan isku qanciyay xalay macnuhu wuxuu ahaa waxaan isiri abi axmed iyo oromo ama idinku soo yaacaan idin harqiyaan baan ka walaacay diyaaradii ay siiyo maraykanka guuxeedan maqlay oo aad u xoog badan markaasaan isku qanciyo isiri war wadan weyna 20 sano sidaas hawadiina u ilaalinaya niman madmadoob idinkuma soo didaya idinmana imaan karaan loomana ogola hay saakana waxaan xasuustay maraykanka miyaan anugu dirsaday de oo ormo iiga sokee war mucaaradka Itoobiya waxay dhaheen Soomaaliya fargelin xun nagu haysa anigu warkaasi aad baan ugu farxay ma maqashay geelma taaban ubadkayga gara inda buura laysay maxaad uga farxaysaa waa marmarsiyo doone war farnyama luta ku wareejaan luta singari luta war niman yahow annaga diyaaradaha ay sida maraykanku ducay naga muteen bariga gobolka mudug xaradheere iyo aagiisa afar maalmood biqlaha ka socda labadii shabaab oo meel isugu timaadaba cirka looga soo dhacaya waxaan kaloo la yaabay talow shabaabku ma u calaamaysan yihiin shacabka taaban maayaan nin gabiyo dadkii shacabka ka mid ahaana wuxuu yidhi ninkii dilay hadduu maanta soo degayo dibi baan u soo qali lahay daacadda ilaah marka diyaaradaha nimanka saaran oo shabaabka duqaynaya hadday soo degi lahaayeen xoolaan u qali lahayn allayleh arnimiyow dogonnimado gabalkuntaa la aragahe unu buush weelkan buuytiyana niihamada jari nimankumay baleeyli ninka diyaaradda saaran daw soo degi lahaaye dibi baan u birayn lahankii kadaro dibi dhaliyaarjana madiyo bambaayan gaal dooni mayna dolar qaata dooni mayna waxuu agax ku wada dooni mayna baladeedana dooni mayna ya erjiran geegaha nuglaadana dhulka yaalan ha soo daga dibi baan u qalayna ya maro hayta war miyaadan maqal cali jaamac habilulu yiri muslimnimo ninkan kugu dhaqayn muuminnimo qaasa gaal maxasta ku dhowro oo magansataa dhaama war Yuusuf Garaad waayigu ahaa wasiirka arrimaha dibadda waraaq ayuu u qoray Mareykanka waxa uu yiri shabaab galmudug deegaano kamid ah qabsan rabaan oo ay ku jirto macdanta uraniumka Iiraan ayayna rabaan inay u dhoofiyaan marka waxaan maleynayaa sababta loo duqaynayo inay tahay macdantii laga celinayo macdanteena inuu Mareykanka ogeysiyo waraaqad soo qora ma ahayn war meesha dagaalka xuma ka dhac waa jilay marko waxaana la yiri dad cadcado iskugu jira Lebanon iyo Suuriyan iyo ajnabi kale ayaa shaaribaha looga istaaga goor barqa ah waana militariga Soomaaliya Mareykan ma aha wax duqeeyay war Lebanon iyo Soomaaliya dagaalkoodu goormuu bilowday war baabuurkii markuu madaxweynuhu markad tagay korkiisa uu dadka ka salaamayay shabaab fuushana la sheegay shalay marumba war shabaab gaadiid ma sameeyo dawladuna ma samaysato had walba cidii soo gaarta ayaa wadato warnimayo hadduu warkaasu jiro baabuur madaxweynuhu fuulay xasaanad buu leeyahay ayaan lagu xadgudbin warniyo shabaab waa la dardaarantay hadday kaa aqbalayaan war madaxweynaha Soomaaliya Talyaanigu jooga markii qasliga laga maamulo Talyaaniga lagu soo dhaweeyena ee roogoodan loo dhigay goobtii salaanta lagu sii lahaana socod buu ku dhaafay war arrintaas waa Itaaliya ultima ato war madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Talyaaniga baa soo dhaweeyay baratakholkiisana qaldana madaxweyne sharafeedka Talyaanigana hadduu la kulmaya war cali khaliif gallayr ayaa barigu ra'iisul wasaaraha ahaa Talyaaniga tagay wuxuuna galay kaniisadda Vaticanka dad Soomaaliya qayliyay wuxuu yiri meeshaan waa guri danta Soomaaliya u galay meel kasto danta Soomaaliya gashana waa u galeynaa buu yiri war madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh kismaayo wali jooga maamul goboleedyadina waa ku wareega uu yiri heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliyana aad u dhaliilay mid soconayna ilma ku raaciyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu jigjiga tagay oo dirgaxda ciyaaray ma ilooyay war madaxweynaha ayagii Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi wuxuu yiri Itoobiya ayada 50 sanadood Eritrea guumaysanaysay ayay Eritrea dagaalamaysay marka maantana
dhulkii ka maqnaana waa la siiyey xayiraaddii baa laga qaaday hubka madax bannaani taamana way haysataa marka annaguna sida eletariyo kale ayaan weligay aan dagaal ku jiraynaa ilaa aan xorriyaddayada aan helno war annagu dagaal waa ka daallaye yaa muuse la dagaalamayo oo birta waa faysanaya war cabdiweli gaasoo dagaalku ku cusub yahay ay ishayaan war nimananu muuse biixi waxaan ku riyooday isagoo qor iyo boosh sitoo daacish noqday oo ceel afweyn jooga meel layidhaah war adeer annagu waxaan ku riyoonnay madaxweyne farmaajo oo ictiraafkii si degdega noo siiya oo bilaa shuruuda war daacish nimankii ciraaq iyo suuriya ka dagaalamayey ayay soomaaliya u soo rartay baa la yidhi waxayna dhaheen shabaab ayaan kula dagaalamaynaa marka niman yahow shar isu raraysa ayaa korkeenna ku dagaalamaysa warniyo habaarkaa qabtaan weyna war somalilan israa'iil ayay waraaq u qortaa la yidhi waxay yidhaahdeen waxaan idinka rabnaa aqoonsi oo walaalaynu nahay marka israa'iil aqoonsi weyddiiso habaar ka weyni ma jiro war idinkuba soo faati kabka weydaan galan kiniisaddii ugu weynayd arrintuu fakaray iyo raggu amarka soo siiyey wariyuhu unuun gooya yidhi waa af dheer yahaye ablayduu ku oodkaca lahaa hilibka iisaanka anshax iyo nin weynoon isxaan cidu ka eegaynin odagii taraam baa ka nahay eleladkiisiiye weli ina salmaan ciduma maqal aynugu falay war faraajiya daa'ish kirooyo daa'ish tibtii dadku gooryaasi ma hayne may war heedha idinka waxba sooma aadan baran warna ma haysaane maanta waa maalintii macallinka ma taqaanaa macallinkii macallin ugu horreeyey da'du wax baratay war waa anigan kula hadlaya gabaygayga dhegayso war macallinkii ugu horreeyey adduunka waa jibriil rabbiyaa awood mudan rasuulaa adeec mudan waalidaa ixsaan mudan ardayaa tacliin mudan macallin baa abaal mudan war maha sidane waxa weeye macallinku waa maskaxdii duunido malaasan mawjadaheeda war koo hadlaawti taasiyeeda ee maalinkan waa idhagansoy miida duugow mudun macluula booqasho mudun daraabi salaang mudun deriska booqasho mudun wiliba martiya martisoor mudun weliyaa xirxirid mudan galmudug waa dibishiisi mudan war ma haysaane gabadhii ilhaan cumar ee xildhibaanka maraykanka aqalka hoose noqotay waxay tidhi sharciga diidaya in madaxa la daboosho marka la joogo koongarayska hadda ha la baabi'iyo amarta hadda hasha alla ilaahay tilaabigaadi tillaabay qaata war hadday rabta inay madaxeeda daboolato gaalka ayaa ha timaado war qofku meel kastuu joogu ilaahay ku caabudaya war soomaaliya hal iyo eber bay kaga badisay etoobiya waxaad ogtihiin ma lahane war baraaziila kameruun hal iyo eber uga badisaniyo maxaa sheegaysaa war cid kastoo cayaarta nooga badisa dagaalkaan uga badina annaguna aahey dagaal gundahadow ka dhasha ciyaartanoba mahagalaaso bada war maalin lahay keena godobta gobolka mudug ma iska dhaaf farin baan u diraya san u dhaafaya waraa hal xiro hadduu idin yimaad hal soomaaliya al-shabaab hal eber lama